Palsy or heat beat. Palsy waa tirada ama garaaca uu wadnuhu sameeyo muddo hal daqiiqo ah. Ujeedadanu waxay tahay si loo ogaado firfircoonida wadnaha. Wuxuu ka hadlayaa weli wuxuu la socdaa cabirka wadnaha iyo qaabkiisa. Marka saas qodobka xiga habka loo cabiro deegaanka wadnaha. Qofka uu degan isla markaasna caafimaadka qaba waxaa laga rabaa deegaankiisa daqiiqadii sida tan. Qofku markuu wadnihiisa garaacmayo sida ugu degan oo qofku uu leeyahay uu ku caafimaad qabaa waxaa ka mid ah sida tan. Adults 60 or 80 60 ilaa 70 garaaca daqiiqadii waa 15 ilaa 80 jir. Qofka da'diisa 15 ilaa 80 jir waxaa laga rabaa garaaciisa inuu u dhexeeyo 60 ilaa 80. Jil dareen caruurta dadka waaweyn ka soo sheegay markaan waa caruurta. Jil dareen caruurtan waxaa la rabaa inuu u dhexeeyo 80 ilaa 100 garaaca daqiiqadii waana 6 jir ilaa 12 sano jir. Ciyaalka cunug yar 6 ilaa 12 sano jiro waxaa la rabaa garaaciisa inuu u dhexeeyo 80 ilaa 100. Okay. maxaa yeelay qofka oldiga iyo qofka jil dareenka waxay ku kala bedelan yihiin. Qofka jil dareenka jirkiisu wuxuu sameeyaa koriin iyo dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn, wuxuuna leeyahay firfircooni aan caadi ahayn, wax soo saar aan caadi ahayn. Marka qofkan gaboobo oo 15 ilaa 80 u dhexeeyo waa qof iska normal ah. Jirkiisa wax saas oo koriin ma sameeyo, firfircoonida qofka yar oo kale ma lahan. Marka way kala gedisan yihiin. Marka koriinka qofka yar oo korayo kale ma lahan. maxaa yeelay qofka yar booniskiisa korayo, lafiisa korayo, jirkiisa korayo, xididadiisa weynaayo, dhan walba oo jirkiisa kale wuxuu u diyaar garoobaa qaangaarnimo. Calaamadii qaangaarka la diyaariyaa. waxaa ka socda howlo fara badan jirkiisa. Qofka dumar weynaado qaangaaro howlaha jirkaas way yaraanaya. BBS underrate 100 ilaa 140 garaaca daqiiqadii waana 1 sano jir. qofku markuu 1 sano jiraaba kasii daranba oo muluqa u yahay. markuu yar yahay mujuqa u yahay halka sano oo jiro waa isigana waxaa waaye 1 sano ilaa 5 sano garaaciisa wuu ka badan yahay.
boqol ilaa 140 u gaarsiin. Okay, waqtiga la cabiro dikaanka wadnaha. kow, waqtiga la cabiro garaaca wadnaha. lambar kow, marka qofku uu dareemo xanuun xagga wadnaha ah. lambar labo, marka qofku uu dareemo caafimaad daro guud. saddex, marka qofka la siiyo daawooyin wadnaha fura. haddaba wadnaha marka uu sareeyo waxaa loo yaqaanaa tachycardia, marka uu hooseeyana waxaa loo yaqaanaa bradycardia. macnaha qofku garaaca wadnaha markuu hooseeyo waxaa loo yaqaanaa tachycardia, markuu hooseeyo bradycardia. macnaha saddexdan qodob waxaa looga hadlaa qofka markuu xanuunsan yahay oo kale ama cilada ay jirto. saddexdan qodob si toos ayay uga hadlayaan, waana waxa la xiriira xididdada dhiigga mara iyo wadnaha. waxaa jira cillado fara badan oo wadnaha ku yimaada, iyo waxaa jiro cillado fara badan oo ku yimaada sanbabada, ama virus ha ahaadaano ama bacteria ha ahaadaano ama kansarba ha ahaado. marka saddexdaas xanuun oo iyaga weliba usii kala baxan noocyo kala duwan ayaa ku imaan kara wadnaha. cudurro gaarna uu leeyahay wadnaha oo ah inay dufan ay xirto oo kale xididdada, inuu dhiig raaco kale, dufan oo raaco kale, inuu dhiigga xinjiroobo kale, ama mas ama wax uu qaniino kale oo dhiigga bedelayo xinjireynayo, waxyaalo badan, ama meesha dhiigga marayo buro kale inay kasoo baxdo. marka waxyaalo badanaa dhici kara oo wadnaha inuu shaqeeyo halis ku noqon kara, inuu dhiigga isu gudbo, neuronskiisa iyo selskiisa inay isu gudbaan, iyo nafaqadiisa, waxyaalaha hor istaagi karo oo badanaa jiro. marka waxaa loo baahan yahay in lala socdo cilada, la baaro garaaca wadnaha, la ogaado si loo daaweeyo oo daawada loo helo. marka qofka marka leeyahay baaritaana loo diraa oo kale, waxaa laga baaraa macnaha qofkan wuxuu qabo. hadda adiga xanuunaa sheegtay, calaamadihiisa, macnaha xanuunka ma aadan sheegin, dhakhtarka xanuunka yaqaan, laakiin waxaa sheegtay calaamadihii. waxay tiri saas iyo saasaa lee haya, xilligaasaa lee qabtaa, sidaasaa lee qabtaa. marka isla markii dhakhtarka waxaa u fududeynayo inuu baaritaan sameeyo, oo wixii aad sheegaysid oo baaritaan ku sameeyo, isigoo ku xisaabtamayo inuu cudur noocaas jiro. marka baaritaankii sameeyaa cudurka noocaas ah, xanuunka ku hayo qaybtuu ka yahay, maxaa yeele cudurka isagaa qaybo badan sooma. marka qaybtuu ka yahay ayuu sii ogaana. markuu qaybta ka yahay ogaado, kabacdi waxaa u fududaanayo inuu adiga daawo saxa oo ku siiyo, oo aad ku dawoodid, oo cudurkaasna meesha looga saaro, loo baabi'iyo. saas aa fududaanaysa. marka baaritaanka saa-id ayuu muhiim u yahay, iyo in qofka bukaanka ah laga helo qaabka loo haayo iyo qaabka xanuunka u hayo in la helo. aad ayay muhiim ugu tahay in qofka daawadiisa la helo
oo caafimaado ilaa caafimaadka haya marka intaas ayaan kusoo gabagabeeynaa cashirkeena